كي والي قطه بعد صحافة وسلامتها maantay abaarihii labadii iyo barkii duhurnimo aniga iyo xogayaha guud ee xisbiga wadajir mudane Said Cali Macalin Cabdulle oo joogna hotel Maka Al Mukarrama oo xilli qado ay tahay oo runtii aan la fadhino niman siyaasiyiin iyo xildhibaano runtii aan la qadaynaynin xildhibaano aqalka golaha shacabka ka tirsan ayaa waxaana soo weeraray hotelka ciidamo afduuban oo sida la sheegay ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee loo yaqaano NISA waxaa watay sarkaal ka tirsan hay'adda oo madax u ahaa oo la yiraahdo Farxaan Maxamuud Qaroole sarkaalka ka tirsanaa wuxuu ka tirsan yahay saraakiishii maalintii hore shirki saxafi ee aan qabanay aniga iyo xogayaha aan dacweyne ayuu ka mid yahay sida la sheegay sarkaalka waxaa telefoonka ugu jiray saraakiishii kale oo runtii asagana aan la dacweynay oo uu ka mid yahay Saadaq Cumar Xasan Saadaq John oo ah taliyaha gobolka Banaadir NISA iyo jaamac iyo ragii kale oo ay laftooda aan dacweynay oo ay ka tirsan yihiin xafiiska madaxweynaha mudane Fahad Yaasiin iyo ragii kale oo markii horeba oon soo amarnay oo dacwadii aan ka geynay maxkamadda xilligii ay soo galeen runtii anagu waa iska qadaynaynay wax abaabul siyaasadeeda iyo wax aan ku jirnay midna maysan jirin meeshii anagoo qadaynayna ayaa waxaa soo galay ilaa 30 askari oo ka tirsan ciidamada afduubka ah ciidamadii markay soo galeen waxay noo wada qabteen waxay hansab gareeyeen waxay yiraahdeen mobiladiina dhiga waxay yiraahdeen isma dhaqaaji kartiin waxay yiraahdeen cid dhaqaaq karta ma lahan dadkii oo dhan mobilada dhulka hal dhiga yiraahdeen si argagax leh ayay runtii nagu soo galeen kadibna markii ay dadkoo dhan ay hubka ay ka dhigeen mobiladii iyo waxay ka baqayeen mindha masawiro in laga qaado sida muuqata wuxuu ahaa weerar iska sharci darro ah weeraradii hore oo 17 December uu dhacay ayuu la mid ahaa run ahaantiina wax marqaati qof walba u joogay ilaa 30 qofood ilaa dadkii hotel ku jiro dhan argagax ku dhacay ay ahayd kadibna markay ku jireen ilaa 5 daqiiqo 7 daqiiqo markay hotel ku dhex jireen oo meel walba baareen ayay waxay noo yimaadeen aniga xogayaha guud markaasay waxayna yiraahdeen labadan nin aan la ka baaro telefoonadeenii ayay qaateen kadibna wayna baareen aniga waxaan weydiiyay maxaad nagu baaraysaa oo warqadii sharciga aad haysatay aaway ninka Farxaan la yiraahdo ayuu wuxuu igu yiri dalkan sharci kama jiro sharciga aaway sharci ma jiro laakiin amar dawladeedan qaba waxaan ku yiri aniga amar dawladeed lagu baari karay waxaan rabaa sharcigii iyo maxkamaddii ku soo dirtay ii sheeg haddii aad warqad haysatid waa ku raacaya marka waxaan ka baqnay runtii in nala xabadeeyo inuu na dilo waa la cooperate gareynay wuuna baaray jirkeenu baaray wax buu naga waayay sidoo kale xogayaha guudna waa la baaray hotelka dhexdiisa aan la geeyay meeshii aan ku baaray dadkii oo runtiina wada fiirsanaya kadibna run ahaantii wana saaray hotel ayuu gaariga hotelka banaankiisa noo saaray labadeena kaliya dadka kale wuxuu ma dhaqaaqi kartiin markaan weydiinay maxaa naga rabtaa dawladda inkiisa dirtu dhahay kadibna waana sii watay gaariguna saartay gaari qooqana oo askar afduuba u saaran tahay kadibna wuuna waday markii gaariga dhexdiisa aan saarnayna waxaan ku niri intee noo wadaa dawladda idii wadaa yiri askari amar la siiyaan ahay marka dab waxaan waayahay dawladda noo geey waana leexiyay isgoyska dabka markaan marayno ayuu kor noo leexiyay dalcadda haddana kadib luuq uu nagu leexiyay sida naloo sheegay meel runtii dadka lagu asineed gareeyo oo meel luuq ah guri ah ayuu nagu leexiyay gaariga buu istaajiyay kadibna wuxuu yiri uu ka degay telefoon ku hadlay uu soo koray wuu socday haddana telefoonku gaarigu istaajiyay markaasaan waxaan ku yiri war hay'adda dawladda dhankaan naga xigtay ma na dil rabtaa nooma jawaabin
annagu waxaan u qaadanay markaas in runtii nala khaariji rabo maadaama meeshu aysan ahayn jidkii weynaan oo ka leexdo luqluq ay ahayd kadib waan soconnay gaarigu istaajiyey mar walbaba gaarigu istaajinaya uu ka degay telefoon u wacayay kolley madaxdii soo dirtay u wacayay kadibna sidaasaan waxaan ku soo laabanay ilaa jidka Via Liberia aan soo dhacnay gaarigu mar saddexaad ka degay markaasuu askartiis wuxuu ku yidhi iska siiba afduubka iska siibeen kadib wuxuu nagu soo leexiyey jidka markuu nagu soo leexiyey ayuu hoteelka hortiisana keenay markaas wuxuu dega markaas waxaan ku nidhi sharcigii iyo dowladdii aad noo wada aaway waa laydinka maarmay amar baan lahaa amarkii haddana amarkaa lasoo amray gaariga ka soo dega markaas waxaan ku nidhi aniga dowladdii noo geey gaari askartuu nagu dalbaday xoogu nagu soo dejiyey markaan dhulka nimidaan waxaan ku nidhi nasii telefoonadeenna nama uusan siin telefoonadeenna amar uma haystu yidhi waana la tegey markaas sida ay wax u dhaceen waa sidaas waan haynaa sawiradii laga qaaday saxaafaddana waa la wadaagi doonaa laga qaaday askarta ayagoo ku dhex jira hoteelka dhexdiisa wax sharci ah ilaa hadda looma sheegin wax dowladdu ay ka hadashay ilaa hadda ma naqaan wax baaris dowladdu ay ku dhawaaqday ilaa hadda ma aanan maqlin run ahaantii waa dareemi kartiin waa afduubkii jiray maalintaas iyo 17 December wixii dhacay iyo maanta wixii dhacay annaga askartii aan dacweynay oo runtii aan ku haynay inay runtii dowladda shaqada laga joojiyay aan nire oo nire maxkamadaha la horgeeyay isla ayagiya markaana soo weeraray waa dareemi kartaa amni inaan dareemi karin ninkii aad maxkamadda geysay markii hore ku soo weeraray maantana ku soo weeraray barina wuxuu rabu sameyn karaa assassinations ayaan aaminsanahay in lagu soo amray in lagu sameeyo iyo dil maxaa yeelay godka jilcoon nalama geen nalamana geen habar qadiijada nalama geen hay-adina wasuuda meelaha ka tirsan tahay nalama geen hay-ada bilays iyo hay-ada dambi baaris nama soo aadin xabsi dowladeed nalama geen dee hadduu askari intaas ka qabsado luuq kuu leexsan karo inuu 5 xabadood kugu dhufsana waxay tahay male ayadoon la oqon ciddii soo amartay iyo ciddii kale run ahaantii waa ka xunnahay sharci darradaas in ay runtii ay soo noqnoqotay inay wax iska caadiya noqotay waxaa muuqata inay gacanta ka baxday runtii hay-adaha amniga iyo niman siyaasiyiina oo dowladda ku dhex jira runtii inay isticmaalayaan sidaasay wax u dhaceen intaas hadii sheegana waxaan ku wareejinayaa mudane Sayid Cali Xogaha guud xisbiga oo bacdu sida gudoomiyaha xisbiga uu sheegay oo ugu warbixiyay wixii dhacay maantay waxaan raacinaa weerarkii dhacay 17 Decemberna waa joogay kanna waa joogay haddee waxay ku kala duwanaayeen kaasna wuxuu ahay habeen kanna wuxuu ahay maalin laakiin askartuna askartii ahaayeen taliyaashuna taliyaashay ahaayeen ragga amarka soo baxshan raggii ahaayeen isla raggii dacweysnaay oo arrintii hore ku dacweysnaay oo loo heestay dembigii hore in isla ayagii ay weli magaalada howlgal ka samaynayaan oo dadka weerarayaan oo ciidamo ay wataan oo go'aamadii rabaan ay gaarayaan waa wax aad looga naxo aad aan uga xunnahay waxaana aaminsannahay waxyaabaha socdo inay yihiin wax siyaasadaysan wax madaxda sare ay soo amreen wax lagu talagalay inay yihiin waana wax socdo muddooyinkan oo laga bilaabo December ilaa hadda isbeddel aan arko haynaa waddanka oo la rabo waddanka in la geliyo colaad iyo amni xumo iyo khalkhal siyaasadeed saas darteed annagu waxaa mar kale ku celihaynaa dadkii dacweysnaayna in maxkamadda la keeno kuwa siyaasiyiinta oo madaxda oo aaminsan in awoodda maanta ay haystaan inay ku takrifalaan rabaane in xasaanadda laga qaado ayagana si loo dacweeyo sababtu waxaan aaminsannahay ayagu waxay nala rabaan in fawda dhacdo waddanka waxay nala rabaan in argoosi dhaco waxay rabaan waddanku inuu meel khaldan aado laakiin annaga waxaan leenahay waddanka lagu soo celisho dariiqiisa saxda xoogga loo adeegsanayo siyaasiyiinta iyo shacabka iyo magaaladana waa in laga waantoobaa dadkuna waa arkaan sida wax u socdaan oo khaldan waxaana rajaynaynaa baarlamaanka iyo xisbiyada iyo civil society-ga iyo odayaasha dhaqanka inay waxyaabaha socdo wax ka qabtaan waxna ka yiraahdaan si waddanku uusan ugu dhicinin gacan khaldan uusan ugu dhicinin meel khaldan waa maasantiin